haddaba maxamed cabdilaahi farmaajo taariikhdiisa oo kooban maxamed cabdilaahi maxamed oo ku magac dheer farmaajo waxa uu ku dhashay magaalada muqdisho 1962 waxaana waxbarashadiisa ka bilaabay magaaladaasi muqdisho isagoo hoose dhexe ku dhameystay maxamuud xarbi iyo kowda luulyo dugsiga sarena waxa uu ka baxay dugsiga farsamada gacanta ee la foore waxbarashadiisa jaamacadda waxa uu ku bartay dalkaasi Mareykanka jaamacadda ku taal magaaladaasi Buffalo halkaas oo uu ku qaatay shahaadada digriga koobaad isla jaamacaddaas ayaana ku qaatay shahaadada heerka labaad ee master degree waxyaabaha uu bartay maxamed cabdilaahi farmaajo waxa ka mid ah cilmiga siyaasadda xiriirka adduunka xuquuqda aadamiga cilmiga raadinta nabadda horumarinta dadweynaha maxamed cabdilaahi farmaajo waxa uu ka soo shaqeeyay safaaradda Mareykanka ee dalkaasi Soomaaliya sanadkii 1986 ilaa 1969 intii uu burburkii ka dhacay Soomaaliya inta badan waxa uu ku noolaa wadankaasi Mareykanka 14 Oktoobar ee sanadkii 2010 ayaa loo magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo 8 bishii 2017 ayaa loo doortay madaxweynaha Soomaaliya.